Ra'iisul Wasaaraha dalka Norway Johannes Støre ayaa si xamaasadaysan ku soo bandhigay xukuumaddiisa cusub oo uu ku sifeeyay in ay tahay muddo 25 sano ah xukuumaddii ugu horeysay ee ay si qayaxan uga dhex muuqan doonaan xisbiga shaqaalaha ee dalka Norway. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in ay ka soo dhex muuqan doonaan xukuumaddiisan cusub wajiyo ku cusub sidoo kalena wajiyo hore loo yaqaanay iyo kuwa si weyn dunida iyo Norwayba ay u taqaano. dadka sida weyn Norwejiga iyo dunidaba u taqaana ee uu Ra'iisul Wasaaruhu sheegay ayaa waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaarihii hore ee dalka Norway, madaxii hore ee gaashaanbuurta NATO, hogaamiyihii hore ee Maxadka Difaaca Dunida Jonas Stoltenberg oo noqon doona wasiirka cusub ee maaliyadda xukuumaddan cusub ee matali doonta Norway. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in ay xoojin doonaan ciidamada difaaca Norway sidoo kalena ay wax weyn ka qaban doonaan horumarinta waxbarashada, caafimaadka, dhaqaalaha, ganacsiga iyo bulshada Norway. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in xukuumaddiisan cusub ay matali doonto guud ahaan dadka Norway. Ra'iisul Wasaaraha waddanka Sweden Kristersson ayaa ka dhawaajiyay in uu murugada iyo xanuunka la qaybsanayo dadka Swedishka ah gaar ahaan kuwa ay waxyeeladu ka soo gaartay dhacdadii foosho xumeed ee maanta weerarka loo adeegsaday rasaasta ka dhacay magaalada Örebro mid ka mid ah iskuulada ku yaalo. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in xanuunka iyo murugada uu la qaybsanayo dadkiisa maanta oo Talaado ahna ay tahay maalin murugo iyo xanuun badan guud ahaan dalka Sweden. magaalada Örebro ee waddankaasi Sweden mid ka mid ah iskuulada ku yaalo ee dadka waaweyn wax ku bartaan ayaa maanta rasaas xoog laga maqlay waxaana durba u soo gurmaday ciidamada booliska oo sheegay in halkaasi uu dhaawac ka soo gaaray ilaa 5 qofood oo mid ka mid ah uu yahay midkii howlgalka waxyeelada dadka loogu geystay ka fuliya iskuulkaas. dhacdadan ayaa ku soo beegmayso iyadoo bishii January ee dhamaatay ay dalkaasi Sweden ka dhaceen in ka badan 30 qarax iyo rasaas loo adeegsaday iyo dilal kala duwan oo kooxo kala duwan ay waddankaasi Sweden ka geysteen. deegaanka Finnmark ee waqooyiga dalka Norway ayaa waxaa laga soo sheegayaa cimilo khallafsan oo isbarbaryac leh kadib markii ay kulansadeen qabow daran oo uu baraf la socdo, duufaano iyo dabaylo xooggan iyo roobab mahiigaan ah. arrintan ayaa sababtay in uu hakad ku yimaado isu socodka gaadiidka kala duwan ee deegaanadaas haddii ay ahaan lahaayeen kuwa hawada ee ay diyaaraduhu ka mid yihiin, kuwa badda oo ay maraakiibta iyo doomanka ka mid yihiin iyo kuwa dhulka ee gaadiidka kala duwan. waxaana maanta oo Talaado ah hakad ku jiro isu socodka gaadiidka kala duwan, sidoo kalena waxaa la xiray airportka magaalada Bodo iyadoo hakad la geliyay gaadiid badan oo badda oo ay doomanka dheereeyo iyo maraakiib isugu jiro oo deegaanada ku sii socday. arrintan ayay khubarada saadaasha hawada ku sifeeyeen wax la yaab leh maadaama cimiladu ay tahay mid aanan fadhin. wadamada ku bahoobay midowga Yurub ee qaaradda Yurub ayaa durba bilaabay in ay ka arrinsadaan culeysyada kaga soo wajahan dalka Mareykanka ee uu taladeeda la wareegay madaxweyne Donald Trump oo durba bilaabay in uu culeysyo dhaqaale ku soo rogo wadamo badan oo adduunka ah waxa uuna canshuurtii ku kordhiyay wadamada Mexico iyo Canada. si taa la mid ah waxa uu ku hanjabay in midowga Yurub uu iyaguna canshuur adag ku soo rogi doono. arrintan oo kulamadeeda ay toddobaadkii hore ka bilowdeen magaalada Brussels ee xarunta midowga Yurub ee caasimad u ah waddanka Belgium ayay kaga doodeen culeysyada dhaqaale iyo siyaasadeed ee kaga soo wajahan Mareykanka iyo sidoo kale culeyska ka saaran dhanka Ukraine dagaalka ay kula jiraan dalka Ruushka ee uu hogaamiye madaxweyne Putin oo culeys adag uu ka saaran yahay. arrintan oo kulamadan socday toddobaadkan ayay isku fahmi waayeen sidii ay uga hortagi lahaayeen waxaana jira doodo adag oo dhex marayo wadamada kala duwan ee midowga Yurub ku bahoobay. halka ay wararka ugu door karaan maanta idinkaga imaanayeen waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. waxaan idin la socodsiinayaa aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.